wax kasta oo carqalad gelinaya ka baaqaasna oo nabadgelyadaas iyo shirkaas gelinaya carqaladna waxaan rabnaa inaan dhinaano beri baa kana waxyaabaha ka midka ah ee carqalada gelinaya waxaan u malaynahay oo ay caddahay oo mala ay sahayn caddahay in uu yahay ibaanti ka reesay wasaaraha saameyn tiro badan ninkaas oo aan uga baranay inuu galmudugna burburiyo mashaariicdana u diido noloshana u diido 3 sano khayr joogay ilma ku dhashay gobolka ma seexan waxaan aaminsanahay waxa uu ku imaanay inay tahay shirkaan inuu burburiyo annagoo aayahana wali ka tashan waxaan aaminsanahay inuu ku imaanayo shirka hobyo soo socdo inuu burburi doono waxaan aaminsanahay dhacday shalay hadda gawaan ka dhacday inuu asaga iyo dadkiisa xulfadiisa ay ku lug lahaayeen oo nabadgelyo darradaas ay wadaan marka arrinkaas ayaan waxaan ka soo jeedinayaa in uu ninkaasi war waxbana waa ka dhimanaa war godobna wuu ka dhiman lama arko uga hadlaya ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya oo la sheegay inuu safarkiisa ku soo aadan yahay magaalada Gaalkacyo ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya waa kii markii ugu horeysay uu ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya noqday dagaalkiisii ugu horeeyay wuxuu ka bilaabay Galmudug wuxuu bilaabay inuu ciidamada lacagta ka joojiyo wuxuu ka bilaabay fidno wuxuu bilaabay inuu cadaada doorasho madaxweyne dheeraada keeno aakhirkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa kii kala jabiyay labadii maamul ee ku midoobay ee sunna ra'iisul wasaaraha Soomaaliya anigu dadkaygan u hadlaa awaanad Galmudug baan ahay wax Galmudug u soo dhaxgalayna ma aha lacag ku heshid waa inaan ogaado xaaladda dalka iyo dadku siday ku sugan tahay waxaan u sheegayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo taageerayaasha Galmudug waxa Galmudug dumiyay waa dawladda federaalka ugu horeeyay madaxweynaha Farmaajo oo buugaag hore u qoray oo taariikhdiisa dadka dibadaha oo dhan way hayaan khayrana wuxuu u magacaabay inuu dadka burburiyo intaan aqliga lahayn iyo intaan wax fahmayn waxaan u sheegayaa Galmudug wali waxa jooga dad nool dadkii Galmudug ma wada dhiman inta aqliga leh waxaan u sheegayaa Galmudug ha loo istaago hooyo waan ogolahay wixii ka soo baxaan taageersanahay waan taageeraynaa dadka Galmudug dal iyo dibad waa inay u istaagaan siday u difaaci lahayn masiirkood xamar hal la xoreeyo loo istaago wardhiig leh ka joogan xamar degmada intii magaalada inteedii kale ma tagi karaan dekada laba canshuurood baa laga qaadaa iyaguna canshuur bay ka qaadaan nimankii kale dhalinyaradana canshuur bay ka qaadaan halkan Gaalkacyo sidii oo kale ku socota hadda hal la istaago wadanka hal la xoreeyo yaa lagu mashquul ra'iisul wasaaraha soo socday ra'iisul wasaare ma aha mana aaminsan inta xaaladdu sidan tahay hadduu ra'iisul wasaare fiican noqdo oo dalka Soomaaliyeed masiirkiisa qarannimadii ka shaqeynaya waan ogolahay xilligan xilli ka duwan